بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم فايلا خيارتنا في رسداسنا ديغاسنا أرغاسها كدو هذا صومالي ماي تي في نتورك أخياري أوكم أي باسين هاينا برنامج يال يديدن بدن هانو صورنتي أنا ملايا وانتي اسنكو وده هلا دونتن هدي إلهي رب ما يباكم مدى باشيخ عبد الرحمن شريف oo aan malayn intiisan eedeedan ka saasan ya studio Somali My TV martaniinka ah oo aan ku weydiin doono dhinaga diinta su'aalo ku saabsan intaas daan gudu galna si caadada bariin hayti barnaamijkana may ba ka bilaawanaba casharka diiniga ah oo tahanada haay oo isin hortaba ka barateen Somali My TV network iyo nay isla fiirsanay bal nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoo sheegay xadiidka Abu Hurayra nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam sayakunu fi aakhir ummati نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت ألعنوهن فإنهن ملعونات ودركي خاصة جريها سناد إلهي كسي شيخ سوي أيضا قرآن كهاي سنين أخرياي ونونا هاني كعمل فلايك امرقاذي ألني ويلا آمين آمين ما يبانang ملايا يبان تيسن كفير سودون تان قيبت الدنب Somali My TV network أخيرا سيدان هرتب السين كشاقي وكي استوديان Somali My TV ما يبا مرتنين كأبا شيخ عبد الرحمن شريف أو كوميدي علماء قبلكم من صوته أنا إمام كدار الهجرة أنا ملايا ونتيسن كساسان هذا سؤال بدن أنا ملايا ونتيسن كفايدة سودان شيخ عبد الرحمن مركز TV الكوس هفرد هذا والبدن على كفايدة يصير خير الله سيا يا ما يبا إنسورت قليبا أنتي أنا وكي استوديان Somali My TV كعزمه يا ما يبا جيربا أنتي أنا كدوا والشيخ عبد الرحمن مركز رئيس كوسر Somali My TV الليبان وعد بعض ما تصنتهاي أديك إياه بحث Somali My TV أنت النوبة وأنا قصور روادي. إن شيخ عبد الرحمن عاوة والله كفت ميان وملاينا يا شيخ عبد الرحمن قبل كان أنا ودقناهي سمر والبا إن بلهان أن كتير هذا يتنص فود نقصه هاي سبا وحنو ملاينا يا إن جور بدن سكجرو Somali ذا أد جور ستا أديك لنا وحنو ملاينا إن الحجالة كتاي سرنا هانتيبا وايو نكاحي وحي أديك أبى جوبجك أبى marka waxaan rabaa inaad aniga daawadayaasha Somali My TV caawa aanu nooga faa'iideysid guurka faa'iidada uu leeyahay Sheekh Cabdiraxmaan liibaan waa su'aal aad iyo aad u ballaaran weeye waxaan la yaabaa inaan waqti yar oo kooban lagu soo koobi karin laakiin faa'iidooyinka guurka uu leeyahay waxaa ka mid ah bini aadamku ma aha malaa'ig waxay leeyihiin dareen marka dareenkaasna wuxuu alla og yahay subxaanahu wa ta'aala in la gudanayo diinta islaamku marka waxay nafaraysaa oo faa'iidada koobaad ay tahay in dareenkii meel sax lagu guto ama ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa kamid ah dhaqamadiisa iyo muxuu iraadada ilaahay doonida alla markuu wax xarimo bini aadamku waxba u baneeyaa marka ilaahay markuu naga xarimay zinada oo wali wala taqrabu zina innahu kana faaxishatan wa sa'a sabila aan la yar la kafto aan yar kula kafto Sheekh Cabdiraxmaan in gabdhaha waxay leeyihiin waa maalinteena habeenkaas baan kaleenay adduunka marka hadii gabadha inta iska dhaafto habeenkii ay dhigan lahayd in saaxiibteedana ay dhigato waxay leedahay maxaa lagu dhibi waay dhigo marka waa la isku baraarujinayaa marka gabadha marka saaxiibteeda ay duufayso maxaa la sameyn karaa marka walaarta wax wanaagsan weeyo waa run laakiin sida saxda ah waxa uu nabiga sallallahu alayhi wasallam la takunu imma'a in ahsana an-nasu ahsantu wa in asa'u asa'tu han qonna damari dhan raacday bimaana